haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal goor la joogo iyo meel lagu sugan yahayba geeridu waa joogta oo malaka mawdku noolaha daqiiqadna kama qado. allah u naxariistay cabdilaahi qarshi heesaagii weynaa ee Soomaaliyeed waa siduu sheegayoo nin waa dhintaa ninna waa dhashaa dharaar walba la isdhaafayaa. iyada oo sidaa loo ogyahay ayaa haddana dhimashada loo dulqaadanay kolba kii maalintaa lagu soo warramo ay xigtadiisu ugu murugootaayo tacsi ugu dhigtaa. taa ka sokowna waxay u badan tahay hadday jirto cid maanse taqaan oo qofkii dhintay ay xigaalo ama waday ay midun ahaayeen inay ka tiriso tixa tilmaamaya sida waxtarkiisii loo tabi doono iyo karintii uu baneeyey dhaxanta daran ee bulshada uga soo geli doonta. tixaha noocaasi waa caraacal waxayna ka sii yihiin baroor ama baroor diiq sida Soomaalida qaarkeed ay u tiraahdo. markiise la garab dhigo ujeedooyinka kale ee maansada xaddiga ay kala leeyihiinna la dhudhumiyo kuwa ugu tirada yar ayay baroortu ka mid tahay. waxaa laga hayaa gabayo fara ku tiris ah. raggii hore haddii la yidhaahdana waxaa calanka u sida raaga ogaas oo Soomaalidu ay jeer hore u aqoonsatay maansadeeda ninkii salka u dhigay inuu yahay. ujeeddadaas iyada ah laba gabay oo waaweyn ayuu raaga ku leeyahay. inta aan u warhayana waxaa allaha u wada naxariistay soo raaca cali jaamac haabiil, yuusuf ibraahim oo yuusuf dheere ku magac dheeraa iyo xasan shiil oo isna gabay aweyti lagu naanaysi jiray. labadiisa gabay midkood wuxuu raaga tiriyey ugaas xuseen ugaas warfaa oo walaalkiis ahaa markuu geeriyooday. kan labaadna wuxuu ku saabsanaa haweenay u dhaxday oo si lama filaana uga geeriyootay, taasoo ah sheekada iyo tixda aan maanta idinku jalbeebin doono. taariikhdiisa raggii yaqiinay siday ku warrameen raaga ayaa cilmi xuseen oo abtigiis ahaa wuxuu ka doonay gabar uu dhalay oo cabban la oran jiray. waa la siiyey waana lagula xidiray. xoolo aan badnayn oo yaradkii lagu heshiiyey ka mid ah ayuu bixiyey. dabadeedna iyada oo aan loo mehelin ayuu reerkoodii isaga laabtay. ha yeeshee alalaaskii arooska isaga oo weli u tabaabushaysanaya ayaa nin kale isla gabadhii soo doona. ninkaas oo Axmed la oran jiray waxaa dhalay garaad wiilwaal oo galbeedka dhulka Soomaalida jeer ka ahaa taliye jiitaa ah oo cidi aysan maya ku oran jirin kuna oran karin. goor galab ah ayuu Axmed aqaladii cilmi xuseen wuxuu soo hortubay 50 halaadoo yarad ah mid ka dhacdana aan lahayn. odaygiina waxa ugu wacnaaba muu oran Axmedow raaga ogaas ayaan cabban kula xididay nin kalena kula xididi maayo ama wuu yiri wuu ku adkaysan waay. si kastaba ha ahaatee Axmed wiilwaal geeli waa laga gudoomay, gabadhiina waa loo dhisay isaga oo og inay raage u doonanayd. bari dambe isaga oo warbooga ah ayuu raaga soo dhigtay. isla habeenkii uu reer cilmi xuseen u soo hoydayba wixii dhacay wuu ogaaday, aad buuna uga cadhooday. ugu dambaystiina wada hadal dheer oo lagu daalay kadib ayuu odagii wuxuu raaga u soo jeediyey tala uu islahaa wuu ku raalli noqon doonaa. wuxuu ku yidhi maandhow la ceebowye Faadumo oo cabban ka yar baan kuu dhisi, anigaana kugu xoolayn ee aan kuu duceeyey sidaa ku raalli noqo. taana raaga wuu ogolaaday. isaga iyo Faadumana intay isguursadeen bay si aan la filayn isu jeclaadeen. muddo hadday wada joogeen ayay Faaduma reer aabaheed u dhibaat doonatay. saa waxaa la soo siiyey awr goolal ah, rara wada mariiman, qumbayaal sixin ah, tabado oodkaca iyo wax alla wixii cid ladani ay gabdhaheeda ku dhibaadin jirtay. oo kaligeed lama soo dirina waxaa lagu soo daray adduunkaas reerkii ay ka timid rag la gaarsiiya. waxay dhabaha hayaanba goor ay casarliiqi tahay ayaa waxaa u muuqday barinkii ay reer raage ku jireen. kolkaas baa nimankii gabadha lagu soo daray waxay ku tashadeen
si dhibaata ay wadaan goor barqa'a loo arko afaafka reerka inay habeenkaa isaga furtaan beri foogna ay cidda galaan ha yeeshee taladaas Faadumo way diiday waxay tidhi raage oo intaa ii jira lagama yaabo inaan caawa halkan ka seexdo dabadeedna waa inoo berri intay nimankii ku tidhi ayay u dhaqaaqday sharqanta reerku xaggii ay ka soo yeeraysay maxaad ku falaysaa iyada oo tallaabada hoosta ka boobaysa ayay caleynteedii cirka ka soo dhacday wax yar kadibba iyadoo garaaraha tuuraysa ayaa libaaxa diyahaalsani geeda jiqa kaga soo baxay oo haddiiba laba isla ka dhigay gaajadiina isaga reebay waagii baa beriyey raggii dhibaata waday iyo raagi ayaa isu yimid haddiiba Faadumo ayay isweydiiyeen annaga naga timide adinku ma aragteen iyo maya nama soo gaarin ayay isugu warrameen dabadeed raadkeedii baa la qaaday mase guri ba'ay cabbaar gibina kadibba lafa aan weli hilibkii ka qalalin iyo raqdeedii baa la istultaagay raage dhulkaa loo wareegay bari iyo galbeed baa isaga darmay habeenkaas iyo habeenadii xigayba il iyo baar isma u saarin wuxuu isu qaatay boqortooyo dhowaan u soo gacan gashay nin laga tuuray oo guuldarrada ku dhacday aan ka soo kaban doonin markaa buu tiriyey tix baroorahoo uu ku alaladay tix ka mid noqon karta maansada ay suugaanta Soomaalidu ku faani karto ee midda adduun weynaha ay kula tartami karayso isaga oo ku bilaabaya hugunkii xalay ka yeerayay ee dad badani ay dartiis ku hurda seegeen ayuu yidhi sida koorta yucuboo la suray koroma buubaala shinni kaalof galay ama sidii koronkorkoo oobi ama koox arda ah oo quraan kaadibka u toostay ama beela kaynaanahoo kor u hayaamaya ama geelka reeb oo dhirgihii laga kaxaynayo ama ceel karkaarada jabshay iyo webi karaar dhaafay ama habar kurkii keli ahaa lagaga kowsiiyey ama kaal danlay qaybsan iyo kuriga dhaal yaabis xalay korora aygii ma ladin kaamil reeruhu yabku intaa markuu yidhi ayuu ku xejiyey meelise culculusoo uu noogu sheegayo geedada Faadumo wixii uu ku waayey iyo waxay badday wuxuu yidhi kambalkii ardaagii miyaa laygu kaliyey kumbiskii miyaa layga qubay kolaygii ii buuxay wixii ragaygu kuuyey miyaa igu karaamoobay kob abaara meel dhexe miyaa koora ila meeray kub miyaan ka jabay biixi aan kabaya loo haynin maantana kataantii miya layga kala tuuray 1,000 kurtoo dumar haddii laysu wada keeno kolna waxaan la helayn haween Faadumo kale horaantii 1980 qarnigii 20aad ayaa cilmi baare Ameerikaan oo dhaqanka Soomaalida danayn jiray iyo anigu gabaygan isla soo qaadinay milkadiisa suugaaneedna ka faaloona labada meelis u dambaysa ayaan isku dayay inaan u tarjumo markaas buu la yaabay wuxuu yidhi dire guubaabo iyo dagaal mooyee ma moodayn maansadiina inay ku jiri karaan laba meelisoo sidaa u dabacsan dareenka qofkana taaban kara wuxuu u jeeday 1,000 kurtoo dumar haddii laysu wada keeno kolna waxaan la helayn haween Faadumo kale dhagaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebadmo axmed faarax cali idaaja ah ayaana inoo soo jeedinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad weli nagala socotaana waa Washington